السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي سلام يا رمان أصحاب تلك نجد دعوة نساء من البوتشوكتان يسول بو مقال كيجو ومركا يدين سو جارية به وحندون يا مقال كان إن كجحده علاد كسر عصبوناتي قبلك كدمركي سعودية يا إماراتي يسكوك عن سارين قده هذا الكاسيمن هذا محين وكفهمنا عرنتان سيدي سامين أولا يران كرتا سوماليا يقولوا محين وكلاس عنا لولن كوين كشرة بدعس marka qaybta hore ee muuqaalka iyaga arimaha ayaynu ku fiiri doonaa waxaan sidoo kale aan muuqaalka qaybtiisa dambe aan doonayaa inaan ku fiiriyo Ethiopia oo si dadban u sheegatay maamulka Somaliland iyo waliba maamulka kale ee waqooyi bari ee Soomaaliya inay ka tirsan yihiin dhankaasi Ethiopia ka hor inta aysan Israa'iil ku dhawaaqin aqoonsigii muranka badan markaas dhaliyay waana arin horay inooga hoos baxday laakiin aynu gadaal ka ogaanay isla markaana aynu muuqaalkanaga aynu ku falanqayn doono marka bulshada wada meel boojogtaan iyo soo muuqaalkaygu uu marka idin soo gaariyay wasad oo dhankaas Yemen aynu bal in yar ku dul hakano yaa horta Yemen ku dagaalamaya maxaa Yemen ka socda dadka aan sida weyn ugu baraarugsanayn siyaasadda gobolka ka jirta iyo waliba geopoliticska ayaan bal sawir guud ka siinaya marka hore waxay dalkaas Yemen ka socda dalka Yemen la yiraahdo oo aynu dhaqan wadaaga iyo din wadaaga nahay isla markaana aynu xuduud ka leenahay dhanka badda ayaa mudooyinka hadda la soo dhaafay oo dhan wuxuu ahaa dal ay dawlado kala duwan ay ku dagaalamayaan waxaana ka socday dagaalka nooca loo yaqaano proxy war saddexda kooxood ee ugu awoodda badan ee dalka ku dagaalamaya ayaa waxay kala yihiin kooxda ugu horeysa waa kooxda Xuutiyiinta oo markaasi haysata inta badanba waqooyiga dalkaas iyo magaalada caasimadda ah ee Sanca waxaa la rumaysan yahay in kooxdan ay gadaal ka soo riixayso dawladda Iran oo hubka iyo qalabka iyo farsamooyinka dunida ka waalay ay markaasi tahay arrinka imaanaysa dhankaasi Iran waxa sidoo kale jira koox kale oo magacooda markii la soo gaabiyo loo yaqaano STC oo laga soo gaabiyay Southern Transitional Council ayaa laga soo gaabiyay kooxdan waa koox gooni goosad ah oo doonaysa in gobolada qaar ka mid intay la goodo ay noqoto dawladda madax banaan waxaana officially gadaal ka riixa oo maalgeliya oo sameeyay dalka yar ee Imaaraadka Carabta la yiraahdo isla markaana hadda noqday mushakilka ugu weyn ee dunida muslimka markaasi ka jira kooxda saddexaadna waa dawladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi Yemen ka jirta oo madaxweynaha ka yahay Rashad Al-Alimi marka saddexdaas kooxood ayaa ku dagaalamaya inta badan dalkaasi Yemen kooxda ugu horeysa Xuutiyiinta oo leeyahay Iran bagdal ka riixaysa iyo STC oo ayaguna leeyahay Imaaraad bagdal ka soo riixaya iyo dawladda dalka ka jirta oo ayadana leeyahay dawladda Sacuudiga ay jeebka u jirtaa marka dagaalka rasmiga ah ee ka socda dalkaasi waa dagaal u dhaxeeya Sacuudiga Iran iyo Imaaraatiga saddexdoodana waxa la rumaysan yahay inay ama calaaqaad la leeyihiin ama ayaga naftirkooda daha gadaashooda laga maamulo oo la leeyahay Mareykanka Israa'iil iyo Ruushyaanka ayaa naftirkooda xataa daha gadaashiisa ka sii maamula marka waa dagaal xataa aan la ogeyn cidda sida dhabta u dagaalamaysa waxyaalaha ay doonayaan iyo waliba sababtay u dagaalamayaan haddaba maxaa keenay colaadda cusub ee dhaxmartay Sacuudiga iyo Imaaraadka sababay in la gubo hubkii Imaaraadku ay u wadeen kooxda gooni goosadka ah oo dawladda Sacuudigu ay dhawaan duqaysay hubkan sida la sheegay lagu duqeeyay dekada waxa iska lahaa Imaaraadka isla markaana waxay u wadeen kooxda gooni goosadka ah ee STC la yiraahdo waana koox mudooyinkii hadda la soo dhaafay dardar xoog leh la soo baxday oo inta badan dalka Yemen u muuqata inay gacanta ku dhigayso waxayna dhawaan la wareegtay gobollo cusub iyo waliba ceelashii shidaalka ee ugu muhiimsanaa ee dalkaasi Yemen marka waxay falanqeeyaashu ay leeyihiin waxay Sacuudigu u arkaan hadii hub kale oo dheeraad ah ay kooxdaasi ay hesho inay qatar weyn ay ku yihiin isla dalka Sacuudi Carabiya maadaama kooxdan meelaha ay sheeganayso iyo gobolada ay leedahay waan la go'aynaa ay intooda badan xuduud la leeyihiin dalkaasi Sacuudiga waxay sidoo kale ay dawladda Sacuudigu ay ka dagaalamaysaa maadaama dawladda ayadu ay taageerto dalkeedana lagu soo dhisay in dalka laga qabsado dawladda ay markaasi ayadu ay taageerayso halkaana ay ka timaaday talaabadii ay Sacuudigu ku duqeeyeen baabuur aad u tiro badan oo nooca dagaalka ah oo dhawaan Imaaraadku ay siiyeen kooxda gooni goosadka ah dhanka kale maalmihii hadda la soo dhaafay waxa soo xoogaysanaya wararka sheegaya in kooxdan gooni goosadka ah cid sida dhabta ah markaasi gadaasha uga riixaysa inaysan Imaaraadka kaliya aysan ahayn oo markaasi Israa'iil ay xataa ku duuban tahay oo qorshaha ugu dambeeya oo kooxdan ay markaasi Israa'iil leeyihiin marka halka waxa ka yimaaday
khilaaf weyn oo imaaraadka iyo sacuudiga markaasi dhex yaala wuxuuna sacuudigu markaanu dareemay cabsi weyn oo dhinacyo kala duwan markaasi ka imaanaysa wuxuu sacuudigu u arkaa haddii ay Israa'iil gacanta ku dhigto baabul mandab ama dhanka Soomaaliya ka timaado ama dhanka kale ee Yemen ka timaado in markaasi sacuudiga la cuna qabataynayo wana aragti ay sacuudiga xataa la qaban dawladaha sida Masar sida Turkiga iyo dawladaha la midka wana sababta ay sida weyn uga hor imaanayaan in Israa'iil ay biyahani cagta ay soo galiso marka aqoonsiga Israa'iil ay dhawaan aqoonsatay Somaliland iyo dhaqdhaqaaqa cusub ee kooxda gooni-goosadka ah ee Yemen ay ka wado dalka Yemen ayaa waxay u muuqdaan in labaduba ay yihiin qorshayaal istaraatiijiyad ah oo fog oo Israa'iil ay ka leedahay regionkan ama gobolkan wana sababta keentay ayaa la leeyahay in sacuudigu xilligan ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo isku dayaan in imaaraadka xoog uga saaraan gudaha dalkaasi Yemen marka sacuudiga oo amra dawladda meesha ka jirta ayaa madaxweynaha dalkaasi waxay ku qasbeen ayaa la leeyahay inuu soo saaro waraaq uu u qabto saacado yar gudahooda in imaaraadku ay uga baxaan dalkaasi Yemen isla sidoo kalena sacuudigu wuxuu soo saaray waraaq kale oo asaguna uu ku dalbanayo in imaaraadku ka baxaan oo waliba si degdeg ah uga baxaan dalkaasi Yemen wixii inta ka dambeeyana waxaa bilowday in imaaraadku ay ka qaxaan ama si degdeg ah ay uga baxaan dalkaasi Yemen sida ka muuqata muuqaaladii saacadii hadda la soo dhaafay wareegii warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada marka gobolkii waxa ku soo kordhay xaalado cusub kala riixasho iyo waliba xataa xulufooyin hore u wada socday inay xilligan markaasi ay kala shakiyaan marka inuu fiirino badda cas waxaanu arkaynaa in halka ay sacuudigu ku yaalaan halka ay masaarida ku taalo iyo waliba Turki oo meel dambe markaasi ku taala badda casna wax loo soo mariyo inay dhamaantoodba ay dareemayaan qatar aysan hore u dareeminin haddii Israa'iil ay degto ama Soomaaliya ama dhankan kale ee Yemen taasoo loo arko in la doonayo in la cuna qabateeyo iyo in dawladahaas awoodooda markaasi la wiiqo waana qorshe fog oo markaasi reer galbeedka iyo Mareykanku ay kula socdaan Israa'iil marka xaaladda ka taagan Yemen iyo xaaladii aynu maalmihii la soo dhaafay aynu ka degenay inay Soomaaliya ka bilaabato ayaa runtii aad isugu eg tusaale ahaan oo kale markii aynu isbarbar dhigno Soomaaliya iyo Yemen booska ay kooxda Xuutiyiintu ay ku jiraan waxa ku jira kooxda Al-Shabaab booska ay ku jirto kooxda gooni-goosadka ah ee Yemen ee STC la yiraahdana waxa ku jira Somaliland halka dawladda Yemen ka jirta iyo midda Soomaaliya ka jirtana ay runtii aad isugu dhaqan eg yihiin marka haddii colaadda noocaaya ay Yemen ka dhici karto muddooyinkii hadda la soo dhaafin ay ka dhacaysay Suudaanna ay ka dhacday maxaa diidaya inay Soomaaliya ka dhacdo su'aasha cid walba oo arrimahan la socota isweydiinayso waana meesha laga soo dhirinayo qatarta weyn ee Soomaaliya ay dhexda ka taagan tahay marka qodobkaas intaas ayaan ku dhaafaya qodobka labaad marka aynu fiirino 17kii bishan hadda aynu ku jirno ee December 2025 muuqaal uu faafiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo markaasi uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X-ka ayaa waxa ka soo muuqday maapkan aad arkaysaan maapkan markii aad si dhab ah u fiirisaan ayaa waxaad arkaysaan in Soomaaliya laga gooyay Somaliland iyo waliba waqooyi bari ee Soomaaliya waa dhulka hadda ay Somaliland u sheeganayso Israa'iilna ay leedahay aqoonsi ayaynu siinaa dhulkaayo dhan ayaa laga gooyay maapka Soomaaliya waana ka horba intii Israa'iil aysan oranin waxaan aqoonsaday Somaliland laakiin dhulkan laga gooyay maapka Soomaaliya lagama dhiginin dal kale oo madax bannaan oo kale laakiin waxaa lagu daray oo la mariyay color lamida colorka maapka Ethiopia taasoo ka dhigan inay Ethiopia ay markaasi ay yihiin arinta waxa ka imaanaya su'aalo badan oo isweydiin mudan waxa isku soo beegay maapka ay Ethiopia soo saartay 17kii bishan aynu ku jirno halka 26kiina Israa'iil ay ku dhawaaqday in Somaliland ay tahay dal madax bannaan maxaa arintan isku soo beegay su'aal loo baahan yahay dadku inay isweydiiyaan waxaan sidoo kale aynu wada ogsoonahay in Ethiopia iyo Imaaraadkuba aysan ilaa iyo hadda ka hadal xadgudubkii ka dhanka ahaa midnimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya xilli aamusan yihiin haddii aysan is ogeyn aamusnaantu waa qayb ka mid ah raalli ahaanshaha marka inay isku soo beegmaan ayaa runtii waxa ka imaanaya su'aalo waxa kale oo laga yaabaa in qorshaha dhabta ah Israa'iil ay damacsan tahay xataa inaysan ahayn oo kaliya in gobolkan laga gooyo Soomaaliya laakiin xataa ay suurtagal tahay in la yiraahdo dhankaas Ethiopia hal lagu beeriyo oo halkaas ay tahay halka ugu dambaysa oo la doonayo arintan in lagu dhameeyo marka duulaanka lagu soo qaaday Soomaaliya
waxaan isleeyahay inta aynu u malaynayno wuu ka guda ballaaran yahay waxaana muuqata inay qorshayaal badan oo kala duwan ay jiraan iyo weliba inay jiraan dawlado kale oo ayaguna fahansan wax meesha ka socda waana sababta xilligan keentay in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay kala boodaan iyo in dawlado badan oo muslim ah ay ka baqaan in markaasi meesha ay wax u soo marayaan loo fariisto marka inaha ayaan muuqaalkan ku soo koobaya barintan dib isaga soo laaban waxaan ka tagay saan wadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh